waxaan hadda aan rabaa inaan soo dhaweeyo Honorable Yusuf Hassan, member of the Kenya National Assembly. Yusuf Hassan is currently the member of parliament of Kumukunji. I'm so sorry, wallahi. Kamakunji. In Nairobi, he was the first elected parliament in August 2011 and is now serving his third consecutive term in Kenya National Assembly. He serves on the Defense and Foreign Affairs and the Appointment Committee. For 18 years, he worked with the United Nations, including UNHCR and UNOCHA, in emergency and humanitarian operations in Mozambique, Afghanistan, Pakistan, East Timor, the Horn of Africa, and the Great Lakes. He's also served as a senior policy advisor in Geneva and at the UN headquarters in New York. He's also the director of IRIN, then the UN Humanitarian Global Information Network with the headquarters in Nairobi. For many years, he was a journalist. He started his broadcasting career in the Voice of Kenya in Nairobi before heading to London to work for the BBC. He was the editor of the BBC in London, senior editor at African Events in London, senior editor at the Voice of America in Washington, D.C., and the director of the Namibian Broadcasting Corporation in Windhoek, Namibia. I can go on and go on, but waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo Honorable Yusuf Hassan. السلام عليكم وانا من سلامي وحان سلام خاصة قادسينا يا رندبا وحان هلكن اللي كسو مري مركي ان حلبان نمد رادساني سي آدو معانا ولا تنما دي سولو ويسين مركا وان إنكم هالنقيا وحان سلام يا دكا فراها بدن Minneapolis iyo meelaha kale ee Mareykanka ka yimid waxaan jeclahay inaan aad ugu tahniyadeeyo dadka shirkan qabanqaabiye isukaya keenay shir fiican oo wanaagsan oo farxad leh weeyaan waxaan salaan idinkaga wadaa xaafadda aan ka imid xildhibaanka aan ka hay ee Kamukunji oo ay ka mid tahay xaafadda Isli التقانين waxaan u malaynayaa way yar yihiin dad yar oo Soomaaliyeed oo aanan soo marin ama si aan qoys aanay u joogin runtina waxaan ku faraxsanahay inaan ahay xildhibaanka kaliya ee dalka Kenya ay dadka Soomaalida oo dhan soo doortaan xildhibaan Soomaaliyeed waxaa laga codsaday inaan ka hadlo jidka nabadda iyo isbeddelka ka dhacaya geeska Afrika waxaan isleeyahay geeska Afrika waa gobol mushkilooyin fara badan ay ka jiraan mushkilooyin taariikhi ah oo qodo dheer dagaalo muddo dheer daba dheer oo muddo dheer socon jiray nabadgelyo la'aan horumar la'aan iyo saboolnimo waxa kale oo ay leedahay geeska Afrika marka la eego qaxooti fara badan oo ku barakacay dagaalada meesha ka jira wadanka gudihiisa wadamada gudahooda iyo kuwa dibaddaba mushkilooyinka marka ka jira geeska Afrika waa kuwa aad iyo aad u culus oo aan la sahlan kareynin
marka aad eegto ballaadhka geeska Afrika dadkeeda faraha badan qowmiyadaheeda faraha badan xisaabteeda faraha badan runtii ma jirto hal jawaab oo anigu ka bixin karo oo lagu xallin karo ama se lagu jawaabi karo dhibka ka jira iyadoo sidaa tahay geeska Afrika waa gobol Afrika ka mid oo hodan ah manaafacaad fara badan leh sida aad ku maqasheen dadkii iga horreeyey haddii nabadgelyo xasiloonaan is-afgarasho iyo wada shaqayn ay ka dhalatana noqon kara gobol aad iyo aad u awood badan qaaradda Afrikana ka muuqda adduunkana qayb iblaxle ka qaadan kara siyaasaddeeda iyo jiritaankeeda taasna waxay u baahan tahay shicib isku kalsoon oo madax bannaan iyo hoggaan fiican oo wax ka bedeli kara xaaladdu sida ay maanta tahay haddii aan eego maanta waxa ka jira annagu haddaan reer Kenya nahay waxaan aad ugu faraxsannahay isbeddelka dhowaan ka dhacay dalka Ethiopia isbeddelkaasi oo uu hoggaan u yahay ra'iisul wasaaraha maanta ka jira Ethiopia Abiy Ahmed oo isbeddel siyaasadeed oo suurtageliyey halgamadii qowmiyadihii hore ka jiray ee dagaalamay inay soo noqdaan si nabad ay u soo noqdaan oo ay waddankooda dib ay ugu soo noqdaan dib u dhisidiisii oo ay ka mid tahay jabhadda Soomaaliyeed ee ONLF waxaan isleeyahay isbeddelkaasi iyo dabeeshaasi socota haddii ay sii jirto in wax weyn runtii ay ka beddelayso geeska Afrika khaasatanna dadka Soomaalida haddaan ka hadla dalka Kenya anigu ka imid isbeddel baa isaguna halkaas oo kaleeta ka socda Kenya waxay ku jirtaa sidii nabad looga heli lahaa geeska Afrika waxaad la socotaan in iyadoo dhibaato ay qabsatay doorashadii ina dhaaftay doorasho kulul oo dadka aad u kala qaybisay ay ahayd wixii ka dambeeyana ay khatar u gashay in khilaaf weyn oo lagu kala tago ay gaadho hase ahaatee madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta wuxuu gartay inuu la heshiiyo ninkii mucaaradka ahaa ee ka soo horjeeday Raila Odinga la oran jiray la yiraahdo waxaana markaasi ay isku gacan qaadeen bishii March 9keedii 2017 wax la yiraahdo handshake gacan qaadkaasna run ahaantii wuxuu keenay xasiloonaan iyo is-afgarasho markii hore aanan ka jirin waddanka waxweyna u tartay in waddanka uu dego oo dib uu culays iyo hawl badan geliyo sidii loogu howlgeli lahaa horumarka waddanka waxaa kaleeto Kenya ay ku jirtaa ururka IGAD Afrikada midowday ee AU iyo ummadaha midoobay oo ay ka qayb gashay sidii nabad looga heli lahaa gobollada kaleeto ee geeska Afrika Kenya waxay qayb libaax leh ka qaadatay sidii la isugu keeni lahaa dowladda Ethiopia iyo jabhadda ONLF intii laga bilaabo 1916 ilaa waqti dhow waxaanan isleeyahay aad bay wax ugu tartay sidii labada kooxood ay u heshiin lahaayeen oo isugu iman lahaayeen waxa kaleeto Kenya ay gacan ka geysanaysaa sidii loola dagaalami lahaa al-shabaab Soomaaliya ka jira oo dagaalka ku haya dowladda Soomaalida diidanna in Soomaaliya ay degto waxa kaleeto Kenya ku lug leedahay nabad raadinta koonfurta Suudaan oo dagaal sokeeya uu ka socdo Kenya waxa kaleeto ciidama nabad ilaalina oo peacekeepers ay u dirtay koonfurta Suudaan iyo Soomaaliya anagu haddaan dadka Kenya deganahay waliba Soomaalida Kenya
waxaan ognahay in xuduudda gumaysiga nooga tegey iyo dad inay naga dhaxayso Ethiopia, Soomaaliya iyo Suudaan, koonfurta Suudaan. danta ugu weyn ee Kenyana ay tahay in nabadgelyo iyo xasiloonaan ay geeska Afrika ka dhalato. Kenya markaa waxay jeceshahay in dadka Ethiopia ay heshiiyaan, dadka Suudaan, koonfurta Suudaan ay heshiiyaan, dadka Soomaaliya ay heshiiyaan, oo xasiloonaan iyo nabad waarta ay ka dhalato. taasna ay fursad u siinayso dadka ku nool geeska Afrika inay u howlgalaan sidii ay u horumarin lahaayeen dhaqaalahooda, iskaashigooda, wada noolaashadooda, oo ay markaasi yeeshaan xoog dhaqaala oo ka saara dhibka maanta ay ku jiraan. sidaa darteed waa soo dhowaynaynaa wixii isbeddela oo nabadii ay ka yimaada oo geeska Afrika ka dhasha. waxaanan isleenahay dadka geeska Afrika way isu soo dhowaan karaan, si nabad ay u wada shaqayn karaan, mushkiladahooda taariikhigana waxay u raadin karaan xalli waara oo heshiis ku dhasha oo aanan xabad ku dhalan. haddaba anigu maxaan odhan lahaa dardaaran ahaan iyo tashi ahaan? waxaan isleeyahay jabhadda ONLF halgan dheer bay soo gashay, qadiyad inkaaran oo adag ayay ku jirtay. maantana waxay garatay in ay dib ugu noqdaan waddankii oo ay nabad doortaan. haddaba xagga dardaaranka anigu waxaan odhan lahaa waa lagama maarmaan ONLF inay ku sii jirto nabad raadinta geeska Afrika iyo khaasatan dalka Ethiopia, oo si nabada ay u raadsato qadiyadda dadka Soomaalida ee dalkaasi ku nool, kana qayb gasho nabad maamulka ka jira Ethiopia sidii wax looga bedeli lahaa, loona xoojin lahaa dimuqraadiyadda, inay la shaqayso oo ay isbahaysi la samaysato dowladda federaaliga ee doonaysa nabadda iyo horumarka iyo dowlad goboleedka ka jirta waddanka, inay qayb ka qaadato hoggaanka iyo dib u heshiisiinta dadka Soomaaliyeed ee gobolka Soomaaliyeed ku nool iyo qoomiyadaha kaleete ee ay is haystaan oo mushkiladaha taariikhiga ay isku haystaan, oo nabad iyo walaaltinimo ay ku xalliyaan mushkiladahaasi iyo cadaalad. in ay ONLF maadaama ay ahayd jabhad, anigu fikraddeedu waxa weeyaan inay noqoto urur ballaaran oo siyaasadeed oo ka qaybgelaya ka taliska shicibka Soomaaliyeed ee gobolkaasi, isbahaysi gobolka gudihiisa iyo dibaddiisana samaysta, una shaqeeya midnimada dadka Soomaaliyeed ee gobolkaasi ku nool, dimuqraadiyadda, the rule of law, erey Soomaaliyeed baan u waayey, cadaaladda iyo sidaanta dadka. haddaan soo gabagabeeyo waxaan leeyahay gaadiid safartu way dheer tahay, go'aan geesinimo leh baad qaadateen, dalkiinni baad dib ugu noqoteen. waxaan idinku gubaabinayaa inaad ka shaqaysaan nabadda iyo midaynta dadka, in waajibaadkan culus ee aad qaadeenna taariikhiga ah inaad si fiican u fulisaan oo waajibaadkii idinka filanayay aad ka soo baxdaan baan anagu rajaynaya. annagu haddaan nahay Soomaalida Kenyana waan idin garab taagannahay. waxaan idin rajaynaynaa guul iyo horumar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.